gabadhiisii curad ayuu habeenimo saqdhaxa intuu gacanta ka qabtay buur cidla ah oo cidina ay joogin kaga soo dhaqaajiyay. Indhihiisu aad ayay u ilmeynayeen, laakiin waxaa ku kalifay inuu arrintaas sameeyo waxay ahayd. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. asxaabteena sharafta leh ee ku xiran channelkeena soo dhawaad walaalayaal. Waxaan idinla wadaagi doonaa maanta qiso dhab ah oo xaqiiqo ah taasoo aad qalbigaaga u taaban doonto haddii aad tahay qof bini'aadanimo leh ama qof qalbi jilcan intaba. qisadeena maanta waxay ka dhacday wadanka Ruushka. waxaa isla noolaan jiray nin iyo xaaskiisa. waxay ahaayeen dad aad iyo aad iskugu faraxsan oo noloshooda ay aad ugu qurxan tahay. Alle subxaanahu wa tacaala waxa uu ku maneystay gabadhoodii curud oo ayadana aad iyo aad u qurux badneed. familka waxay noqdeen hooyo, aabo iyo gabadhoodii curud. ayagoo iska faraxsan oo noloshooda ay aad ugu qurxan tahay ayaa waxaa dhacday hooyadii reerka in maalmaha kamid ah uu xanuun ku soo boodo, xanuun inuu haleelay hooyadii. xanuunkaas hooyadii ugu dambeyn waa ay sababsatay oo ay u geeriyootay. ninkan gabadhiisa markuu muddo yar la joogay waxaa dhacday inuu ku fikiray maad xaas kala guursatid si ay gabadhaada kuula koriso. marka wuxuu guursaday xaas iyadana gabar kala wadato oo nin kaleeto usoo dhashay ayuu guursaday, asna wuxuu wataa gabadhiisii. markii uu ninka xaaska guursaday oo xaaska uu guriga keensaday ayaa waxaa dhacday in xaaskii ay gabadhiisii dhibaatooyin aad iyo aad u weyn ku sameysay, xitaa asoo maqan ayay maalin gubtay. ninkii gabadhiisii waa la silciyey. waxaa dhacday xaaskii maalin maalmaha ka mid ah in ay odaygeeda ama ninkeeda la hadashay, weliba wuxuu ahaa xilli maqrib dabadeed. waxay tidhi laba arin mid unbaad soo gelaysaa, in gabadhan aad nolosheeda ka dheerayso iyo in aan ani adi kala dhammaano. yacni in gurigan uu burburo ama gabadhan aad dhashay in adiga wado ma arki kara intaan kadib. ninkii asigoo oynayo oo ilmeynayo ayuu wuxuu go-aansaday gabadhiisii habeenimo saqdhaxa ah intuu gacanta ka qabtay ayuu meel buur cidla ah kaga soo tegay. gurigiisii ayuu iska imaaday. aad ayuu qalbiga u xanuunayay, laakiin gabadhiisi waa uu tuuray. markii uu gabadhiisa tuuray ayaa waxaa dhacday gabadhii in habeenka ilaahay meesha ku badbaadiyey oo bahalada iyo xayawaanada ka badbaadiyey. waagii markii uu baryay ayaa meesha waxaa soo maray nin boqor ah oo meesha ku dalxiisaya ayaa wuxuu soo agmaray buurtii. ninkii buurtii markuu soo agmaray wuxuu arkay gabadhii meesha keligeed joogta. waa uu wareystay, xaaladeeda ayuu weydiiyey. waxay u sheegtay gabadha in ay nabad ku sugan tahay oo iska faraxsan tahay. wuxuu yiri gabadhan waa gabar wanaagsan, ayadoo meeshaan joogta ayay kheyr sheegtay, bal iisoo kaxeeya. boqorkii gabadhii ayaa loo waday, gurigiisa ayuu geeyey, waa uu wanaajiyey. wuxuu siiyey dahab iyo hanti aad iyo aad u fara badan. waxa uuna yidhi haddii aad jeceshahay inaad gurigeyga ku noolaato iskaga noolow, haddii aad rabtana waad bixi kartaa. gabadhii waxay tiri waan baxayaa. dahab iyo adduunyo ayadoo wadato ayay soo noqotay. waxay imaatay guriga aabaheed. eedadii gabadhanoo nool oo dahab iyo adduunyo wadata markay aragtay waa ay qaracantay. waxa ay tiri gabadhaydana waa in aad wadaa oo duurka cidlada aad geysaa si ay dahab iyo adduunyo usoo hesho. ninkii waa uu ka ogolaaday. naagtii gabadheedii waa lasoo waday, buurta cidlada ayaa iyadana la keenay. sidii oo kale waxaa ku soo maray boqorkii. wuxuu yidhi haye bal ka waran xaaladaada. waxay tiri maxaad iga wareysanaysaa, waad ujeedaa noloshan xun ee aan ku jira iyo meeshaan ay reerkeena iiga tageen. ninkii gabadhii jawaabaha ay bixisay ayuu ka xumaaday. waxa uuna yidhi iisoo wadatan tu kheyr la uma ekee. waa loo soo waday. markii loo soo waday gurigiisa ayaa la geeyey. wuxuuna amray in la xirxiro oo la tumo, sidii loo tumaayana nafta laga qaado. gabadhii sidii ayaa lagu sameeyey. markii ay dhimatana ayadoo meedkeedii xirxiran ayaa waxaa lagu soo tuuray buurtii. muddo kadib islaantii markii gabadheeda ay weysay ayaa waxay tiri gabadhaydii ma soo noqonayso oo dahabna lama imaanayse, bal orod soo raadiyay ii doon. ninkii buurtii uu gabadha kaga tegay ayuu ku soo noqday. misna wuxuu arkay gabadhii xirxiran oo meyd ah. waa uu usoo qaaday. waxa uuna u geeyay hooyadeed. markii ay aragtay waa iska oysay. waxa ayna tiri tan wixii aan horey u samaystay waaye, natiijadeediina maanta ayaan helay. waxay ka qoomamaysay xilli ay qoomama waxba u tareen. sidaas ayay gabadheedii ku weysay kuna dhimatay.